أنا waxaan kula ahaadar qofka bilaadanki haduu caashaqay isagu xaalad abuurka waa mushkilad jirta anu maayirka anu ay belief waxaan aaminsan inuu isagu xaalad abuurayo laba bilood oo tagay magaalada Boorama shacabkayga waa la gubayey dab baa la qabadsiinayey guryaha laga Maqanyahay kuwa Danyartu gasho isagaa magaalada ka Maayirade Wali intuu TV-ga soo fadhistay nooma Fasirin wixii dadkani ku gubteen ama Hantidani ku basbeeshay maantana waa la irasaaseeyey anigii baa la irasaaseeyey dab wax soconaya ma waxa aad xasuusisay nin la oran jiray Axmed Xuseen oo maro wasiirka ah dawladdiina cigaal ayaa waqtigii gobolkan siyaasadiisu aad u baaxad degaysay ee awoodii madaxtooyada waqtiga kala qaybsanadeysay siyaasadii gobolkan ku arki jiray ee oo maraysnaabaan anu maanta arkayaan ma iigu muuqdo anigu uma muuqdo waa la rasaaseeyey waxaasana waxay galaya maaha waxaan aaminsanahay ama israsaasee ama cid rasaasee war wixii magaalada gubay keen naga shaafi dadka soo horjooji wallahi anu nikaasi hadii la rasaaseeyo hadii uu israsaaseeyo anigu inuu farq u dhaxeeyo ma arkayo taa Maxamed Abiib Yusuf war nasiib darro weyn iyo booku taala xukuumadda maanta joogto weyn qofka bilaadanka hadii loo xirayo aragti uu ka aragti duwan yahay xitaa isagoo asku xisbitiin waa nasiib darro maanta madaxtooyada Soomaaliland haysataay kuwii ay isku xisbiga ahaayeen haddii ay ka aragti duwanaadaan xabsiga loo taxaabaya markii aan wareystay xariga Maxamed Abiib loo geystay waxaan ku arkay baraha bulshada dad fara badan oo majara habaabinaya xariga inanka oo ku tilmaamaya COVID-19 baa loo haystaa ee waxa ka sheekaynaya Maxamed Abiib xariga waxa lagu haystaa kelmadii doodii ugu dambeysay ku jirtay ee ahayd Soomaaliland barba maqan kelmadaasina ma aha wax qarsoon madaxweynaha talada haya iyo xukuumaddiisa waxaan u sheegayaa Soomaaliland barba maqan shacabka Soomaaliland waxaan u sheegaynaa barmaqan yihiin qolada dhalinyarada ah ee iyaguna ku dhamaada madaxtooyada ee baraha bulshada ay dhalinyaro ka ugaarsada ee had iyo jeer shaqsan lana dhacsan fikirka xukuumaddan iyo talada haysa maanta aadka ugu adeegay sida camiilka ugu shaqeeya ee ay u yaqaanaan dhalinyarada Soomaaliland u yaqaanaan heego magaca markii ugu horeysay waxaynu maqalay markii Cabdi Ile sii dhacayay kooxu sameeyay masaajidada iyo kaniisadaha iyo gubaysay bay ahayn waxay daraa magaalada Hargeysa kooxna caas iyaguna inay ka shaqeeyaan oo iyagoo markaasi madaxweynaha sawirkiisa isku sawiray I don't know ma garan karo madaxweynahani isagu laftiisu inuu isagu kuwa xog ka hayo ama isaga ay ku tacalluqaan ama isagu u dirsaday anu xogta ma hayo laakiinse waxaan aaminsanahay dad madaxweynaha inuu shaqeynay iska dhigay hadiye jeer dhalinyaradaas waxay caan ku yihiin oo dhex socdaan dhaqaale ahaan markaad u fiirsato qandaraasyada waad ku dhaxarki cashuurta laga qaado masaakiinta iyagoo dhex lugeynayna waad arkay khaasatan dawladaha hoose waxaan nasiib darraa nimankaasi markaad baraha bulshada qaarkood ku aragto ma aha niman kalsooni leh oo markaad aragto kalsooni ay ku difaaci karaan waxaan ay aaminsan yihiin xitaa ma laha waa niman isticmaala xan iyo daahadabadiisa heega leeyahay waxa kale baraha bulshada iyadana ku arkay odayaal cabanaya oo dhul jaamacadda ka cabanaya odayadaasi haybahaan waxay ka soo jeedaan haybta maayirku yahay waan arkay sharciga ay haystaan reer Xuseen Saban agoontii ka hadhay waxaan leeyahay sharcigaasi wuxuu ka baxay dawladda hoose ee Boorama dhulkaana iyaga leh jaamacadda iyo in la isku dhifto ma dadka qaarna in la isku dhifto ma jaamacaddu waa meelihii mudanka ahaa waxaan ku leeyahay Maayirow hadduu sharcigaasi khaldan yahayna waad khaldantiin ku dhaylmaadeerada adaa bixiyo warqadda jeexistaad bixisay ugu dambeysay haddii jaamacaddu khaldan tahayna adaa mas'uulkii u dhaxeeyay iyaan baraha bulshada lagu wada hadlaynin soo jooji